mar labaadna waan ku celinayaa madaxweyne adaana hore u sheegay hadda ka hor dhulbaanta xabad lagaga adkaan kari maayo waxay yihiin baan aqaanaa isku degaan baanu nahay geelayagaa meel wada daaqa xoolahayagaa ceel ka wada cabba daaqsan iyo degaan baa naga dhexeeya waa dad aan laga adkaan karaynin taariikhiyana markaa dib u eegto maxaa lagaga adkaan karaa wanaag in la soo dhaweeyo laakiin xabad ninka isla dhulbahantaad xabad kaga adkaanaysaa wallahi alcadiim waan soomanahaya inaadan habeen jirin haddaad ku fikirayso nimankaasaad xabad kaga adkaan kartaa nimankan ingiriis baa ka adkaan kari waaya walaalow macaanow nin ragii wuxuu ku dhaamana lama jirto aan barina maanta garka qabsanoo soo fariisino waa xalka ugu fudan leeyahay intaa horta iska qoomamayn maayo anigu waayo waxaan aaminsanahay inaan anigu laftaygu dhulbaanta qayb ka mid ah ay tahay aan ahayba anigu waan matalaa anigu codkan 1565 kan ku sheegayo 8 ka mid waa dhulbaanta 9 ka mid waa faqshin 232 ka mid waxa weeye waa nimanka la Muuse Boqori habar jecel halka dad inta kalena waa khayrkayga anigu oo socday Muuse ama markaa waxaan soo arkaa inaan ahay da only xilibaan dadka deegaanka meesha wada degaba codka muusow waxaa doqonnimo kugu ah xaqiiqatan waxaa doqonnimo kuga ah muuse juudaanow adigoo nin isaaq ah dhulbahante oo aad isla degtaan oo aad isdhasheen oo aad yacni ood wadaag aad tihiin inaad dhulbahanto baran weyso waa kugu doqonnimo waxa sidaa u hadlayo waa wiilaad dhali kartid oo ka mid ah xildhibaanada Somaliland wuxuuna sheegay nimankii yiraahdo dhulbahante inaanan xabad hadda waa xabad iyo dagaal inaanan looga adkaan karin oo aanan waxba looga jari karin xaqiiqatan waana ku dhaarayo asoo sooman ayuu ku dhaartay oo yiri wallaahi billaahi tallaahi inaanan dhulbahante xabad waxba looga keenin loogana adkaan karin wariyihii ayaa su'aalay oo yiri maxaa looga adkaan karaa waayahay wuxuu yiri waxaa dhulbahanta looga adkaan karaa walaalow in la yiraahdo hadda waa walaalow in la yiraahdo ayaa dhulbahanta looga adkaan karaa uu yiri taa macnaheedu marka waxay tahay dhulbahanta haddii wanaag iyo walaalnimo loola yimaado oo la tuso oo deegaanadooda looga baxo inay ayagana ay degi doonaan xabadana ay joojin doonaan iyo dagaalka ay wadaan warwaayaha akhyaaray waad salaamay dhammaantii meel kastoo aad joogtaan jamaahiirta ree SCC raalli ahaada baryahan waa idinka maqnaay balse idinkama aana maqnayn halganka meelo badan ayuu ka socdaa halganka baryahan waxaan ka waday gobolka Hiiraan meesha idinka aad ka wadaan gobolka Sool anigana dhanka iyo Hiiraan ayaan ka waday markaa soo dhawaada ilmaadeerayaal raalli ahaada jamaahiirta halganka waa isla wada wadnaa annaga iyo adinka meelo badan ayaa iska shabahnaa xaqiiqatan dhulbahanta iyo annaga meelo badan ayaan iska shabahnaa marka soo dhawaada idima aan iloobin halganka waa idinkula jiraa meelna idinkama jiri soo dhawaada marka akhyaaray soo dhawaada walaalayaal soo dhawaada fadlan muuqaalka inta aan warbixinta aan u galin muuqaalka share iyo like inta ku qabo soo dhawaada jamaahiirta iyo taageerayaashoodaba waayahay xildhibaan ka tirsan Somaliland ayaa wuxuu cadeeyay in dhulbahanta maantadan la joogo inaan dhulbahanta xabad wax looga keeni karin dagaalna aan looga adkaan karin sababtoo ah wuxuu soo qaatay dhulbahanta inay yihiin nimo adag oo yacni dagaalka xaggiisa markii la yiraahdo aanan yacni wax guul aan laga keeni karin haddii dhulbahanta wax laga keeni karo ingiriiska ayaa wax ka keeni lahay xaqiiqatan ingiriis oo dowlad weyn ah ayaa wax ka keeni lahay maanta SNM oo aan naqaano awoodeeda intay dhan tahay xaqiiqatan inaysan yacni guul aysan ka keeni karin nimanka la yiraahdo dhulbahanta waxa weeye marka Muuse Biixi waa doqon waxna ma fahmo waxna ma dareemo dadka fiiri oo wadaag ayay yihiin dhulbahanta way is yaqaanaan way is dhaleen waa dad yacni isku dhex jira weeye ninka marka maanta Muuse wuxuu yacni isbaday awood oo yacni asaga oo isleeyahay waad ku xallin kartaa nimanka la yiraahdo dhulbahanta xaqiiqatan dhulbahanta marka aqoon ayaa ugu dhiman ninka la yiraahdo Muuse Juudaan haddii uu dhulbahanta uu yaqaano wallahi billahi inuu ku degdegan dagaalna uu ku qaadan xabadna uu kala hortagan dhulbahanta waa niman fol adag waa fol guulayaal lagama guul keena xaqiiqatan dib haddii taariikhda loo raaco dhulbahanta oo laga guuleystaa taariikhda lagu mahayo wixii gabayaal ahay oo la tiri jiray ilaa iyo guba
يا وصومالي وين دغيستان umaleynaa waxa weeye nimanka liiraado dhulbahante wallahi inaan dagaal waxba looga keenin dagaalna aan wax looga qaadin maanta SNM way ajaran yihiin xaqiiqatan way ku qaldameen wayna ku ajarmeen waa kuwa ilaa iyo hadda gooja cadde dhaafila dagaalkoodii ay magaalada gudaha u gali laayeen ayagoo 30 sano is abaabulayay 32 sano niman yacni dhisnay is abaabulayo ciidan dhisanayo horumar sameynayay ayaa maanta waxay tilaab ka qaadi laayeen niman la yiraahdo dhulbahanto waxaa leeyahay baasha halkaa ka haaya guushana waa xaqiina waa idala jirnaa ilaahay idinkiisa waana guuleysanaysaan midda kale waxaan rabaa dhulbahante saddexdii maalmood ugu dambeysay magaalada Laascaanood dad baa lagu dilay oo xalay oo ugu dambeeyay ninkii ganacsadaha ahaay Allah u naxariisto cid dishana ilaa hadda lama yaqaano waxaan dhihi lahay dhulbahanto waxaa la rabaa in la ku shabadeeyo argagixisa ayaa halkaasi joogto waxa dadka dilaya waa nimankii argagixisada ahaay weeyaan meesha oo ummadan yaani majbaahirtan ku dhex jirta ayaa filin noocaas ayaa la rabaa in la dhijiyo waxaa dhihi lahay nimankii dhulbahanto gudihiina lagu jiraayo bal isaf gareeya hal isaf gareeyo amaankiina sugta ilaa iyo hadda أول واحد يجينا واحد دلي وسومالا سومالا أنت هذا وإذا كم قنته عدة واحد دلي سببناها كأنه صوبا دقة عدة واحد دلي صوبا دقة جناح صديق حال قدام بيوم قاعد راس على الوجود دلي عدة دش مقالة إذا لجوك تاي يعني هالجن كين الوجود داري ضد بعرف هالجن كين نعكر قوي عيان ضد بعرف هالجن كين إن بيوكسوان أو أي لوك أي لجران وهذا دي لا هيدول بانتو ولا ريالو isxisaabiya magaalada abnigeedana bal si fiican u indha cidda wax dileysana bal soo bal hal dabagalo bal hal raadiyo cidda wax dileyso bal hal raadiyo in maadeen rayaalow waxa waa dhibaato haddii magaaladii maanta gacanteedii kugu jirto dilkana sidii u socdo lidin dilayo xaqiiqatan aqli maaha dhul bahante dib iskugu laabta waxa wax dilaya hal raadiyo ciddan wax dileysa hal raadiyo waa dad doonayo inay fashiliyaan inay fashiliyaan ayaa la doonaya xaqiiqatan wax suuragal ma aha jaamac qaxooti xalay cid disay ilaa hadda lama hayo waa uu la dilay ninka hay maxaa lagu dilay waa dad marka ka shaqeynayo dhibaatadiina iyo dibandaabyad inay idin dhigaan doonayo horumarkiina diidan maantana yacni rabo in la yiraahdo argagixiso ayaa Laascaana joogto waxa dadka laynayo waa nimankii argagixisada ahaay filim noocaas ay rabtaa Soomaaliya inay soo dhagsato haday waxa hadda ila taayna waa dad ayag u adeegayo waa dad SLM u adeegay dadka dilaya xaqiiqatan waxaad dhiilahay marka dhumaanto dadka hal iska qabto gacan birna hal ugu qabto dhamaan waad islaamaya meel kasto aad joogtaan jamaahiirtu waxaan leeyahay dal iyo dibad meel kasto aad joogtaan guushu waa xaqiini waa idin garab taaganahay waa idin la jirnaa waxaan leenahay guul viva SSC. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.